سلام كبعدي أنا قلت جعل قفكي أنا حسين وكقعت ماشي وكجيله وعن رواينا المهر اليوم مركونه مدحوينه حكومة يا شعبه reer Puntland oo aan isleeyahay waxay qabteen shirkan ay martigeliyeen macadka heritage uu soo qalqaaliyey oo ah markii ugu horeysay gudaha Soomaaliya lagu qabto waxaan rabaa inaan idhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa kaloo u mahadcelinayaa macadka maamulkiisa iyo shaqaalihiisaba sida tayeysan ay uga fakareen ay u soo diyaariyeen ay doonayeen inay arrintan timaado la iskuna arko iyo inay Soomaaliya u soo wareejiyaan aan rajaynayo sanadaha soo socda gudaha Soomaaliya inay ku wareegi doonaan haddii la helo intaa ka bacdi sida uu saaxiibkay sheegay markuu u hadlayey macadka waxa ay ugu talagaleen tabeelahani wuxuu ahaa bisha December aynu ku jirno inay dhacdo doorashadii 2020 dhexdeeda lagu jiro oo markaa laga fakaro maxaa iman doona ka bacdi seen uga baxnaa caqabadaha hor yaalla waxaan filayaa arrintaa iyada ah markii aanu September fadhinay Muqdisho ee laga hadlayay waxyaalahan soo jeedinay waxaa ka mid ahaa dowladda soo socota inaan hadda loo sameeyo halkii ay shaqada ka bilaabi lahayd iyo shaqadeedu meesha ay 1 2 3 waxa hor yaalla sababtoo ah haddii dawlad walba timaaday waxa iyada maskaxdeeda ku jira iyo priority ay iyadu samaysatay ay ka shaqeyso dhibaatada imanaysa waxay noqonaysaa maalin walba in lagu soo baraarugo saacadda ugu dambaysa oo la yiraahdo doorashadan aadayna waa xagee haddana ay markaas dhacdo in qofka mas'uulka ka ama cidda danaysa markaas doorashadaas ee mas'uuliyaddu ay ka saaran tahay ay ka fakarto sida iyaga ugu caana badinayso sidaa daraaddeed wuxuu asalku yahay in la bilaabo yoo fikirkii aanu ku talinaynay oo dawladda soo socotay markay la wareegto xukunka ay iyadu garan karto markaa shaqada 1 2 3 waxa ay ku bilaabayso sidaa haddii aan yeelo waxaan isleeyahay wax badan baa inoo qabsoomi lahaa laakiin nasiib darrada taala waxay tahay wax walba way ugu cusub yihiin maalin walbana xaajo ugu baynu ku jiraa maalin walba waxaynu ku jiraa arrin cusub maalin walba waxaynu ku jiraa waxay ugu horle maalin walba waxaynu ku jiraa nidaam cusub oo markaa raadinayno taa waxaa keenaysa la qabsasho la'aanta iyo qeexid la'aanta dadkeenu waxyaalaha dowladnimadoodu ay ku dhisan tahay ee saldhigga u ah waayo dadka waaweynaa ee dowladdii Soomaaliya ku soo hana qaaday maynan aqoonin dowlad federaal inta hadda aan ku jirana waxay naga awood batay qabiilka haddana waxay noqotay in masaalixda laftirkeedu ay mar walba ka bixi weydo taasaa waxaan marar hore soo jeediyey marka laga hadlayo dhamaystirka dastuurka oo ah faktarka ugu muhiimsan ee dowladnimada waxaa lala heshiin karaa macaahid ka madax bannaan waxaan ku darsan karaa khubaro Soomaaliya oo markaa ilaalisa meelaha ama dhaqan ahaan ama diin ahaan wax ka keeni karaysa laakiin aan iyagu masaalix shakhsi oo kaleeyeen ay leeyihiin laakiin markay noqoto in golayaasheena iyo shakhsiyaadkeena iyo siyaasiyiinteena ay ka shaqeeyaan Soomaalidu cilad bay yeelatay cabirkeedu iyada isku dhereerisa mar walba taasaa caqabada keenaysa waxaa dastuurkan la dhamaystiri karaa in loo helo cid ka madax bannaan masaalixda gaarka ee dastuurka ay ku leedahay oo lala heshiiyo waxaan inagu ka saaray golayaasheena ay ka saxaana ay noqoto waxyaalaha markaas laga maarmaanka ah waxaa marar badan aad looga hadlayay doorasho qof iyo cod iyo sababaha ay ku iman karayso doorasho qof iyo cod waa laga hadlaa 2016 doorasho qof iyo cod laga hadlayay waxa la isweydiinayay amnigu ma loo saamaxaya ma lahayaa tirakoob 4.5 see looga tegi karaa qabiilka iyo miskeeni karaan su'aalahaas oo dhan waxay ahayn kuwa taagnaa waxaa loo dibdhigoo la 2016 doorashadu markay dhacdo intaas oo dhan aan saxno qabiil aynu ka tagno 4.5 tirakoob aan samayno deegaanada aan xoreyno dadka hala tirakoobo axsaab hala diiwaan geliyo waanu wajarra qodobo badan oo noocaas la tiriyay aan isweydiinay maxaa ka qabsoomay waxaan oran karaa inta aynu isweydiinaynay
hal tallaabo oo laga qaaday ma jirto bale waxaan ku baraarugay markii ugu dambeysay in 2019 la isweydiiyo 2020 oo la yidhaahdo doorasho qof iyo cod seen u qaban karaa iyo ma qaban karaa iyadoo xaaladda amni aan garanayn waxaad ogtihiin 2017 lana baashir la isugu tegay waxaa laga hadlay amniga qaranku kayfiyadu yeelanayo waxaan isugu nimid baydhaba waxaan ku heshiinay ciidan amni qaran in la dhiso oo weliba tiradiisa la cayimay oo ay ku jirto 32 kun oo boolisa daraawiish ay ku jirto booliska caadiga uu ku jiro heer state iyo heer federaal waxaa loogu talagalay lagu heshiiyey in la dhiso ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban 18 kun oo tayeysan ciidanka intaa leeg haddii la dhisi lahaa oo waqtiga iyaga lagu talagalo oo aan ka shaqayn lahayn waana waa amisoomna dariiqada loogu talagalay iyo mandatekeeda iyo sida ay ku bixireen waa ka shaqayn lahayn laakiin ma aysan dhicin xaaladda amnigu waxaan odhan karaa waa midda ugu adag ee maanta waddankeena hortaala anigoo qeexaya culayska shabaab nooga haystahay inuuna ahayn mid iyaga kartidooda tayadooda iyo qualitigooda midna ah ee ay tahay annaga ducfi naga yimid shaqa xumo naga timid shaqa la-aanaynu qabo weynin iyo annagoo u diyaarsanayn waxa aan ka hadlayno inaan ka rur sheegno haddii aan la samayn karaynin markaa oo ayna dhici karaynin in la qabto oo waddankii shabaab laga xoreeyo oo hawl kale la galo waddankii mas-uuliyadda dowlad heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ka saaray waxba laga qaban waayo waxaa adkaanaysa xulumka iyo riyooyinka fiican ee ay dhalinyarada soo diyaarisay iyo macadku diyaariyeen ka jawaabisteeda inaan ka jawaabno aad bay noogu adkaanaysaa waa noogu adkaanaysaa jawaabaha inaan bixino taa macnaheedu waxaa weeyaan heshiisyadii aanu xilligaa gallay oo aan filayo inuu prime minister joogo maanta xasan cali khayre oo ahaa markaa prime ministerka waxaa ugu horreeya oo ka mid ahayd inaan ciidamada heer state loo aqoonsado ciidan inay yihiin ciidanka amniga qaranka oo ciidamada daraawiishta heer state la siiyo xuquuqda ay leeyihiin kuwa SNA-du la siiyo qalabkooda iyo hubkooda iyo rasaasta u baahan yihiin waxaa lanagu yidhi soo diyaariya waxaad u joogtaan xilligan iyadaa inta idiin joogta waan garanayaa steydyadii markaas joogay waxay wada gudbiyeen baahida ciidan ee loo qabo iyadoo markaa ay u timid dowladda 80 konteenar oo rasaas oo loogu talagalay in ciidanka Soomaaliyeed lagu hubeeyo oo shabaab lagula dagaalamo ma aysan dhicin ilaa hadda dalabkii xafiiska xasan cali khayre yaalay I think roob lagu soo wareegay madaxweynaha la weydiinayaa guuleedda la weydiinayaa nothing else halkaasay ku dhamaatay ma aysan noqonin markaa dagaalka shabaab ee aan doonayno inaanu gallo iyo kayfiyada aan rabno inaanu gallayo waxay noqotay mid annaga nagu eg oo ay leeyihiin dowladdii federaalka ahayd annagii isteydyada ahayd idhab anta warabbaka faqaatila inna haahunaa qaaciduun annagoo halkan aan fadhiyaynayo orda idinku shabaab la dagaalama iyaguna ay ku mashquuleen waxaan maanta maslaxada iyo midda dalka midna aan ahayn waxay gaadhay sicir bararka baydhabo ka dhacay inuu saameyn ku yeesho oo jidka baydhabo iyo muqdisho 90 kilomitir uu furmi waayo iyadoo intaasoo ciidana aan sheeganayno oo mushahar qaadanayo waxay noqotay in la iloobo wixii dhabta wax lagu qaban lahaa haddaynaan middaasi waxa ay tahay ee dhabtaa jawaabteeda aynaan ka bixinin oo aynaan isu sheegin shirarka markii la isugu yimaado war fiican baa la isu sheegaa waa la isqanciyaa shaaha la isla cabaa bakeeriyada la isku dhuftaa waxaa la isu sheegaa wax walba inuu horumar yahay halkaa ay taalaa lagaga tagaa mas-uuliyadduna inta badan waa leeballay kale leedahay annagu waxaana soo gaaraan leenahay laakiin mas-uuliyadda inta u badan dowladda federaalka iskale haddaan idin idhaahdo Jubbaland oo ay isteydyada ay ugu badan yihiin shabaabku ma jiraan dowlad federaalka ah wax naga soo gaaro oo taakula ciidana marka laga reebo 2016 madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii oo aan qori iyo rasaas keenay absolutely lama heli karayo in ka badan 42 goobood baa ciidanka daraawiishta Jubbaland ay joogaan oo dowlad federaal iyo amisom qaarkood xataa ayna la joogin iyaga keligood ay joogaan oo maalin walba dhaawac iyo dhimasho ay leeyihiin oo dhaawac naga dhaawacmeen dabcan in la qaado muqdisho loo qaado helicopterta amisomtu ay tiraahdaa SNA baan qaadaynaa kan daraawiishta ama qaadayn
waana wax maalin walba joogtaa oo dhacaya idan aan idin weydiiyey wiilkii dhaawaca ahaa marka midna la qaado midna laga tago waxa uu ku dagaalamayo iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jiraa maxay noqonaysaa waxaa nasiib darro noqotay markii ugu dambeysay ciidankii dagaalka noocaasa ku jira ee from 2009 ilaa waqtigaas magaalooyinka hadda ugu amniga badnaa ee daawo ee gobolka Gedo gacanta ku hayay ee saaha in loo aqoonsado inay yihiin shabaab iyaga laftirkooda oo intay dawladdii la dagaalanto ciidankii turkigu soo tababaray iyo kuwii qadar laga keenay iyo kuwii jini laga keenay loo keenay leeyahay kuwan aan la dagaalano iyadoo la fiirinayo iyadoo la eegayo markaa masaalix yar oo siyaasadeed iyo dalo laga leeyahay bilaa calaykum anaan doonayn inaan ku sii dheeraado ma waxay idinla tahay maanta ciidanka bannaanka jooga ee Jubbaland ee daraawiishta ahaa ee dagaalkoodii iyo xadkoodii wax walba ay gaareen in la yidhaahdo maanta waxaa laga ilaalinayaa Kenya ciidan loo diro xuduud laga xoreynaya in ka badan 700 oo kiiloomitir baan Kenya xuduud la leenahay kiiloomitirka intaa ay la leenahay 5 kiiloomitir miyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haramcad iyo gorgor iyo shabeel intii la isugu geeyo yaa Kenya laga difaacaya iyagoo 4,000 oo Kenyaan ay joogaan 700 oo kiiloomitir in ka badan oo xuduudana ay jirto yaa intaa shacabka Soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa waxbaa la xoreynayaa Kenya loo galay waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego inaanan ahayn qof Kenya difaacaya inaan ahay Soomaali jinsiyadiisu Soomaali tahay weligeena jinsiyad kale maana qaadan waxaa la yidhi dowladda Soomaaliya waxay Kenya u jartay xiriirkii ay la lahayd oo maxay ula jartay Axmed Madoobe waxay ku soo khasbeen in arrintii doorashada uu si kale uga hadlayo oo ugu joogayo iyadoo xuduudka intaa leeg aan la leenahay Jubbaland kuma laha Nairobi wakiil siyaasadeed ama qusuliyad matalaya ama safaarad matalaya safiirka hadda ka horeeyay Jamaal baan ka wada hadalnay waxaan ku nidhi haddaan wakiil samaysto xuduudka intaa leegna aan la leeyahay luqadii iyo ciidankooduna ay jeeraan waxay image xumo ku noqonaysaa safaaradda Soomaalida Nairobi joogta sidaa daraaddeed waxaan rabaa safaaradda in xafiis lanaga siiyo oo danaha iyaga aanu ka fushano anagoo diidaya inay u muuqato safaarad kale inay tahay waxay dowladdu isku khaladay waxa iyada xaq u leedahay iyo waxaan xaq u leedahay bad baana ka hadlay oo xuduud baana ka hadlay oo ima khusayso oo 20 goor baan ku celiyay oo waa federal issue wixii iyaga iyo Kenya ka dhaxay inay ka hadlaan bay tahay laakiin in darbiye kale lagu warwareegayo wax sax ma inta markaan ka soo gudbo waxa hadda aad looga hadlayaa Ilaahay laga cabsado balanta la fuliyo inaan doorasho qabanno oo waddankaani doorasho uu galay waa mas'ala meel looga wareega aan lahayn laakiin doorashada la qabanayaa waxaanu nidhi waa in xisbiyo iyo musharaxiin iyo tartan xora iyo kalsooni iyo intaa la muujiyo haddii ay noqoto inaan anigu isku cabiro oon anigu qiyaaska qaato oon anigu sameeyo there is no means markaa doorasho sidan iyo sidan loo qaban karayo waxaan rabaa saaxiibka inaan u sheego ballantii aan galay raggii ila joogay way joogaan waxaa laga yaabaa marka ballantaa laga hadlayo cidda ugu badan ee wax laga sheegayo 3 faktor baa la sheegaa laakiin Jubbaland baa ugu muhiimsan oo arrinta gadaal la soo hadal qaadan maalintii aan Kismaayo xamar ka degayay waxaan international community ee saaxiibadayba u sheegay shirka inaana gelinin inta xalka gadaal laga gaarayo saaxiibada waxaan isla qaadanay oo tagada waa la xalin doonaa ta guud baa asal iyada aan ka shaqeyn guddiyaa loo saaray waa la soo dhaweeyay maalintii dambe waxay gaadhay haddana inay meel fog naga kala tagto lagu kala tago saaxiibaday waxaan ku idhi 2 qof baa hadda ka fadhida iyo 3 midkood niman yahow waxaan doonayaa aanu shirkaan inaan ka baxo sababtoo uma arko wax laaqiq inuu meesha ka socdo waxaa la yidhi walaalow annagaa gelayna shirka annagaa idinla qabanayna annagaa kaala shaqaynayna waxaan doonaynaa inaad fadhiisato ood midka guud ilaalisay ka gaar waan u soo noqonayna waxaan ku idhi haddaan ra'yigayga soo jeediyo armaan loo qaata inay xumaan kale igu jirto taasaa waxay keentay markaa
inaan qaato inaan fadhiyo shirkii oo weliba si furan oo xalaal ah doodayda aan uga bixiyo aan uga hadlo oo aan u sheego saaxiibaday markaan la dhameeyey midii aniga ila jirtay nin waliba tii la jirtay uu ka baxay bannaanka isaga baxeen lama odhanin hal qof muuna odhanin garoortaadu waa imise waa la qaybiyey deegaanadii state walba laba goob doorashaa loo sameeyey jubbaland waxaa laga dhigay laba gobol oo jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo kismaayo iyo gobolka gedo oo ah garbaareya ma waxaan xaq u leeyahay state ahaan inaan qabto doorashada gobolka gedo ka dhacaysa oo maamulkeedii lagu soo celiyo oo amnigeedii lagu soo celiyo mise waxaanahay mid ka duwan kuwa kale oo istaydyada kale intay labadooda doorasho qabsadaan yaa fikirka suuqa wareega laleeyahay axmed baa ballan ka baxayo waxaa lagu heshiiyey madaxweynuhu inuu qaato 16 gedaa ii sheega macnaha ilaada ha caddeeyo qofka ogaa ballantaa inaan galay madaxweynuhuse waa musharax doorashuu ku jiraa 16 kursi hadduu qaadanayo maan doorashada iska dayna faraha badan iyo sanaaduuqda la dhigayo iyo axsaabtan iyo nimankan indhaha cadcadee wax sheeganaya musharaxiin baa nahay oo xisbiga hantoodaanka kacaanka soomaaliyeed intaan qoranno hal xisbi cafwan raalli ahaada intaan qoranno hal xisbi oo xisbiga hantoodaanka kacaanka soomaaliyeeda oo 86 u noqono oo sanduuqii jaallaha ee daloolin iyo kii buluuga ah ka dhigano baan doorashada madaxweynaha ugu baarakayn waxaan maanta diyaar u ah oo aan la qarinaynin saaxiibaday istaydyada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo aniguna aan gado ka tago madaxweynaha la siiyo inta kalena aan qabsano haddii kale waxay noqonaysaa xuquuq loo siman yahay inay noqoto oo anigu saaxiibkay axmed qoorqoorro uunan dhuusamareeb iyo gaalkacyo ku qabanin anna aan kismaayo la egeenin aan la odhanin maya gado waxaa la siiyey meel baa lagu bixiyey waxaa intaa wehelisa wuu fadhiyaa madaxweynihii xasan sheekh 2016 bil gudaheed baan 2 goor shiray maxaa loo shireeyey masale intan ka yar baa la isku qabanayay war haddii la yidhaha shir la isugu soo noqonayo oo khaladkii lama saxayo oo doorashaan qabanayna oo puntland iyo jubbaland bulalahaas iyo inta kalea qabanaysa xaggee lagu lisaya maxay noqonaysaa doorashadaas yaynaan noqonin kalatiina qadar qas lahaa oo wixii aan soo maray intaan dib ugu noqonno raadkeenna yaynaan u baabiinin dib oo waxaa maanta dowladdii wakiilkaa waxaa jooga guddoomiyaha aqalka sare waxaa jooga baarlamaanka waxaa jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenkii intiinaba mas-uuliyad baa idinka saara walaalayaalo waxaan idin leenahay dadka soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin inay wada hadlaan oo heshiiyaan waxay ku fiican yihiin wixii lagu wada hadlay intii la isu yimaado in khaladka la isweydiiyo waxay ku fiican yihiin in la yidhaha war maxaa inaga khaldamay oo la soxo waxay ku fiican yihiin in bil walba mar la isu soo noqdo oo la isturxaan bixiyo haddii aada iska wadanaysaan guddoomiye baarlamaan cafwan guddoomiye waxaad weli ka shaqaynaysaan iyadoo baarlamaankii waqtigiisii dhammaaday inaad maanta xeerar ka shaqaynaysaan ra-iisul wasaare saaxiibkay mahdina waxaad moodaa inuu joogo janawari february 2017 shuruuc cusub iyo xeerar cusub bay ka shaqaynayaan aan ku soo noqonno dalkani waa kuma soomaaliya xaggay ka timid maxay tahay war xaggeen haysanaa horta shalay rugta ganacsigaa la kala diro waa la magacaabay shabaab ganacsatadu waxay dhahay shir ma qabsan kartaan kii la magacaabay inala joogana waxay ku dhaha waligaa ma sheegan karti ma shabaab baa wadda xukuma mise inaga xukuma doorashadaan isku haysanaase maxay tahay doorashadaan isku haysanaa waa maxa waaba la xukumaa wad guun baan nahay la xukumo amisoomna ay goladka ku jirto nana waadiyeynayso dowladnimadeennina midaasaynu ka dhignay soomaaliya waxaan leeyahay waxay maanta dowladnimadeedu ku jirtaa kugusan waxay dowladnimadeedu ku jirtaa in la isqanciyo waxaan diyaar u ahay inaan wax kasta oo tanaasul oo dowladnimada soomaaliyeed aan sameeyo
waxaan maalintaas ku yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo weliba waan ku dhisaynaa si walba waxba inoo maha laakiin intaad ka baxda boroseyska kaambeynkaaga ku jira war hadday dowladdii boroseys gasho oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo ku-xigeenkiisii ay boroseys ku jiraan kuwan indhaha alcadi maxay u fadhiyaan iyo maxay qabanayaan aan ka shaqayno aan dib ugu soo noqonno raalli ahaada qof walo innaga inaga midii ha xusuusto 91 ha xusuusto 92 ha xusuusto baahidii iyo barakicii dhibaatadii inagu dhacday ha xusuusto dadkeenna maalin walba la xasuuqayo ha xusuusto ganacsadeenna labada canshuureed laga qaadayo ha xusuusto dhibaatada maanta inoo taalo intaan markaan xusuusanayno dowladnimada soomaaliya waxay ku jirtaa nabad kala wareeg doorasho 4 sano oo mar dhacda ninku si sharaf leh uu ku tago haddii lagu celiyana uu sharaf leh ku joogo lagula shaqeeyo laakiin hadday intaa in ka badan sii warwareegto wax badan baa inaga halaabaya waxaan rabaa saaxiibaday nimankan musharaxiinta ee meesha fadhiya meelaydan hadhow ka soo celin karin ha gaadhsiinina dowladnimada waxa ka iman kara garta hadhow anaa idhi iyo waan soo celin karaa midna waxba inaguga noqonayso aan wada ilaalino aan isku qabsanno aan guryaha isku dhexlayno laakiin shaarica aan ka ilaalino dhibaato iyo mushkilad aan laga soo waaqsan doonin qolada kursiga ku fadhidana waxaan leeyahay wuxuu yidhi qur-aanka oo dhan baan aqaanaa ka akhrisan maayaa ka adag haddaad isdoorataan ood isu buuxisaan oo laydin yidhaha waan idin diidnay meelaad ku foofisaan ma garanaysaan aan dadka isku wadno aan dowladnimada ka shaqayno waxaana hor yaalla aynu garanno culayskana hor yaalla aynu wajahano maanta garowa dad badan baa isugu yimid way qaadi kartaa intaan eegana maqan aanu yeedhno hadduuna mahdi odhan karin madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynow anoo afka ku hadlaya dadka ree soomaalida fadhida iyo ree puntland oo anaa kugu marti qaada inaad noo timaado waddankaagii aan waddanka xalkiisa gaarna noo imo oo waxaa la yidhi koosaar garwaa loo wada jooge waxaan wada ognahay ha noqoto oo yayna inugu dhammaanin janawari hadday bilaabato way dhammaanaysaa rag baa tirsanayoo kursiga u xoqanayoo leh february 8 baan sugayna february 8na broseysaan isku ognahay haddaan la qaadin berri buu tegaya aan ka taxadara waddankan inuuna dib u noqon aad baad u mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu